xogayaha biyaha ee xisbiga wadani cabashooyin la xiriira dhinaca biyaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo yeerayay bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo iyo xisbi ahaan sida ay u arkaan isagoona fariin u diray madaxweynaha Somaliland arinta cabashada Ceerigaabo oo arin soo noqotay runtii waxayna taagan tahay imika meelihii u sareysay bay taagan tahay in badanna baraha bulshada way ku jirtay oo Ceerigaabo biyo jaban bay rabtaa halku dhigaas ay adeegsanayeen maalin dhaweyd waxa hadlay nin siyaasi oo magaalada ragga tacabka weyn geliyay nabadda iyo horumarkeedaba oo Cali Baashe la yiraahdo ninkaasi wuxuu sheegay in magaaladu biyaheedii qaali yihiin oo cabashu soo jeediyay isagoo nin kale chief caaqila jawaabba markaa aan aad uga yaabay oo aan maxay haytay waxaan la qaadan karan ahayn jawaabba ka soo baxday maamulkii biyaha marka jawaabtoodii waxay noqotay ninkii inay qaanamaad hawada u mariyaan oo ay yiraahdaan lacag baa lagu leeyahay 2 milyan baa lagu leeyahay nin kale oo isna Maxamed Saalax Warsame la yiraahdo isna waaba lagu xidhay xarig bay gaadhay wasaaradda baa qaranka u qaabilsan oo wasaaradda biyaha la yiraahdo fariinta waxaan u dirayaa wasaaradii waxa laga joogaa faramaran baa laga joogaayo marka horena Ceerigaabo duruuf gaar ay qabtaa duruufta gaarka ay qabtaa waxa weeye wasaaraddu ma maamusho biyaha Ceerigaabo kama mas'uulaha marka xeer baa dalku leeyahay dalkuna waa isku xeer waa gaabis iyo maxay haytay shaqo laga gaabiyay marka horeba in xilligan dawladda hoose maamusho dawladda hoose marka horeba ay hawlaheedii kale ka farabadan yihiin maamul biyaha u dhisan oo gaar oo laga xisaabtamo baan jirin madaxweynaha marka fariinta halka uga diray waxa weeye madaxweyne ninka wasiirka ahi talaabo rasmi ah oo biyaha ilaa hadda ka qaaday cabashadaasina way soo baxaysay waxaan adiga ku soo gaarsiinaynaa in magaaladu sidaad shalay jaamacadda ka sheegtay qalin jabintii dalka duruuftiisu way badan tahay oo dalku Ceerigaabo ay duruuf gaar ah sii qabto waa inaad soo gacan gelisaa cabashada biyaha Ceerigaabo waa inaad ka jawaabto Bashiir Umar Geele xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa jawaab ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka gaadiidka Somaliland Cabdilaahi Abubakar kaasi oo uu ku sheegay in uu dalbaday in ordad la geliyo isaga iyo siyaasi Xirsi Xaaji Cali Xasan oo hore mas'uul uga ahaa jidka wadada Ceerigaabo hadalka madashi ka baxay jaamacadda madaxweynuhu uu fadhiyo madaxweynuhu halka wuxuu ka qiray wixii Xirsi soo jeediyay inay dhaliil sax ah oo dhaliishii xisbiyada loogu talagalay dhisanahay xisbi ahaan hadalka Cabdilaahi ee ka daba tagaahay wuxuu muuqanayaa ciilqab siyaasadeed madaxweynaha hadalkiisina inaanu dhageysan baan filayaayo uu ka Xirsi kaliya markuu dhageystay deedna warbaahinta la hadlay hadalkii madaxweynaha wuxuu ahaa in aan siyaasaddu aan ciilqab lahayn Cabdilaahi Abubakar marka wadada Ceerigaabo laga hadlo tacabkeedii balaadna iyo bilowgeedii iyo asaaskeedii ninka Xirsi la yiraahdaa ninkii bilaabay buu ahaa hogaaminayay anigu deegaan ahaan baan ka soo jeedaa Ceerigaabo baan ka soo jeedaa wadadana waa soo mar wiigi u dambeeyay soo marayo waxa uu sheegayo iyo waxa uu buunbuuninayo waxa la wax ka jira ma jiraan wadada waan soo maray Cabdilaahi hore inuu ogeyno xulguf siyaasadeed baa ka dhex jirtay Xirsi tiiba maantana uu maxay haytay soo cusboonaysiinaya oo ka hadlaya ciilqabun ba hadalkiisu isugu tagay isugu biyo shubanaya horena wuxuu ahaa Cabdilaahi ninkii sheegtay dawladda amniga isagoo wasaaradii jooga oo amnigii ka mas'uula waa ninkii yiri golaha wasiiradu xubnaha al-shabaab baa ku jira argagixisada baa ku jira samcadil qaranka bay ahayd samcadilka qaranka ah waliba maalinta madaxweynuhu uu ugu hiiliyeeyo wuxuu yiri Cabdilaahi Abubakar markii la soo xidhay gurigiisa la weeraray wuxuu yiri Cabdilaahi Abubakar khalad baa lagu weerarayo Jabuuti kuwii tegay ee qaraxii Jabuuti ayaaba Hargeysa maray buu madaxweynaha laftiisu yiriyo taa uu madaxweynuhu uu ku raacay de shalay madaxweynuhu uu ka bayrayo khaladkii hore haduu beriga ku raacay shalay uu ka bayray waxay Cabdilaahi inuu ka joogsado Cabdilaahi markii maxkamadda la soo saarayna maxkamadda dhexdeedii buu ka ooyay maantana hadii ordad la geliyo hadaan ordadka dees kalsooni kale maanta jirindii hadii maantana ordad la geliyo waxa weeye nin baabuurta Somaliland joogta ee saddexdii dawladood ee ina dhaafay soo degaysay ee la cashuurayay waa ninka kaliya ee intuu dib u cashuuray buugaag cusub u sameeyay kharash cusub u sameeyay kharashkaasina ilaa hadda meel u maray aan la garanayn marka ordadka cusub u dalbanayo diyaar baan u nahay Xirsina diyaar buu yahay